shir ballaaran oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday degmada Beledhig oo loogu magac daray guul iyo go'aan ayaa si rasmi ah loo soo gunaanaday kaasi oo u socday beelaha degmada Beledhig kuna saabsan sidii ayaha mustaqbalka degmadani loo horumarin lahaa wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Togdheer qaybna ay ka yihiin maayirka degmada Burco iyo xildhibaanada dawladda hoose ayaa kala qayb galay munaasabadaasi oday Caawil Xaaji Aadan iyo xogayaha shirkaasi Cabdi Axmed Gaas ayaa kelmadda soo dhaweynta kadib ku dhawaaqay qodobada shirkan iyo ugu muhiimsan tahay qadiyada madax bannaanida Soomaaliland jiritaanka Soomaaliland waa muqadas gorgortana ma gali karo waxay beeshu ugu baaqaysaa dhammaan beelaha Soomaaliland nabad ku wada noolaasho kuwa deriska iyo kuwa kaleba boorinaysa dhammaan beelaha Soomaaliland ka shaqaynta nabadda iyo soo dhaweynta cid kasta oo nabad danaynaysa waxay ugu baaqaysaa dawladda Soomaaliland in ay dardar geliso soona dhaweyso cid kasta oo nabadda danaynaysa waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo maalgelin ku sameynaysa deegaamadeeda iyo dalka Soomaaliland guud ahaanba waxa lagu doortay 22 xubnood oo gudida guuda beesha ah shirkan waxa ka soo baxay 12 qodob oo guud iyo 5 qodob oo u gaara gudoomiyaha gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyo xildhibaan Dingool ayaa iyaguna si mug iyo miisaan loo soo dhaweeyay qodobadani wax ku oolka ay ka soo baxay shirkani inta muddada ka socday degmada Beledhig waxaan aad u taageerayaa ama aan wuxuu ahaa galay ama aan qaatay ama aan u arkay wax cuntamaya go'aamadii wax ku oolka ahaa halkan ka soo baxay bahweynta Beledhig ama bahweynta Sheekh Xasan Geelle ay halkan ka soo saareen shirkoogii muddada socday marlabaad waxaan mahad ballaaran ka celinaynaa soo dhaweyntii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee nalagu soo dhaweeyay degmadan Xaaji Xasan Geelle ex Beledhig go'aankaas gaadheen Ilaahay idinka jasaayisiyo kaas oo aynu ku dhaqanno yaa meel kasta haday kaasa ku dhaqan soo goyseen hadaynu ku dhaqanno kaasa guul boqor Maxamuud Cali Carab salaadiin waxgarad aqoon-yahano qurba joog iyo maayirka degmada Beledhig ayaa iyaguna si ballaaran u soo dhaweeyay shirkani guul iyo go'aan ay ku soo gabagaboway jawi degan iyo askarad ka habsaamay ee ku tala galay shirka ballaaran iyo natiijada quruxda badan aynu isoogu nimi raggii asaasay ka shaqeynaya ku tala galay u dhabar adeegayna waanu mahad celinayaa Cabsaaq Farax Abdullaahi TV-ga qaranka Burco.